shir uu soo qabaqaabiye xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho. shirkani ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta iyo xoojinta adeegyada dowladda xilliga dalka uu galayo doorashada. xoghayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Ibraahim Nuur ayaa warbaahinta uga warbixiyay shirkan iyo ujeedkiisa. maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu abaabulay kulan oo ay isugu imaanayeen dhammaan agaasimayaasha guud oo wasaaradaha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya. kulankaas waxaa si fiican looga hadlay iskaashiga iyo isku warhaynta iyo wada shaqaynta wasaaradaha dhexdood iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha dowladda xilligan doorashada aan ku jirno. sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay sidii ay u samaysan lahaayeen agaasimayaasha gole oo agaasimayaashaas isu keeno shirsiyo bishiiba mar la sugu imaado laga hadlo arrimahoodii iyo in la horumariyo tayada service delivery-ga ama bixinta adeegyada dowladda. markaasi si fiican oo shirku ku soo gabagaboobay. waa mahadsantihiin.